marka caawa topic aan ka hadlayno oo cad waxa waaye peace building Somalia, especially regionka ku saabsan mudug ama gaalkacyo areadeeda. anigu nin areadaas ku soo koray last 2 years ka hor waxaa noo yimid mayorka gaalkacyo degmada galmudug ceremony abulsa ku soo dhaweeyay ninka waxa isku garanay marka inaa actually isku dugsi aanay gaalkacyo 1996 wixii ka inaa isku dugsi aanay marka mayorka duqa magaalada Minneapolis ayaa la kaftamanay waxaan ku yiri this is my hometown city, the city with the 2 mayors. Wuu yaabay ninkii aad buu u qoslay wuxuu yiri magaalada 2 mayors leh is a beautiful thing. Sayraha marka sharaf iyo wanaag bay inaan ka soo qayb galo. I just want to get to the point. dalkan ku noolnahay ama dalalkan joogno waxa la isku nool yahay oo lagu wada jiro waa nabadda. Annagu we have a lot in common if we're from that region. Dad common leh isla dhashay isku dada isku diinana. City Minneapolis and city of Boston oo dadku meel ay walba ka kala yimaadeen adduunka ayaa peaceful ku nool. Marka nabadgelyadu waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo dadku ku wada joogaan. annaga oo isku common ah inaan nabadgelyo isku la joogno waa arrin aad u muhiimsan. Commonality-geedana waa inaan xusnaa maxaa common noo annaga. maanta hadda halkaan soo istaago kulligeena waxba isku nahay amba halkaas ku nahay iska badaa waxyaalahaas iyo la isku yahay laakiin commonality-gana waxa isku magaalada deganna isku dalba deganna isku biyo cabnaa isku mataqaan cuntaan cunaa annaga marka meesheeni iyo degmadeeni ina commonality-ga u fiirina waxyaalahan common isaga nahay. It's unfortunate city Somalia ama dalalka Soomaaliya marka la fiiriyo waa naturally segregated waa dad segregated ah. segregated waxay u yihiin dadku way kala degaan oo region baa loo kala degaa qabiil marka laga hadlayo. We need to change that. We want to make sure dadka cusub inaan soo dhaweyno qof walbeetana inuu isku dareemo dalku iska wada degan yahay. hal qof oo magaalo leh ama qof oo qabiil leh magaalada inay jirto ma aha. City Minneapolis ama City Boston lama kala lahan. aniga oo mudug ku dhashay ayaa city council ka ah. Tomorrow qof kale oo region kale ku dhashay ayaa mayor ka noqon kara. marka commonality-ga iyo waxyaalaha difference-geena inaan isku fiirino waa waxyaalaha ka raba inaan ku daro waxa waaye conference-gan uusan noqon conference asaga nimid oo ma taqaanaa aan ku wada sheekaysanayno bas laakiin waa inaan kala tagnaa wax actionable item ah. ha isku badinina saddex waxyaalood baan suubinaynaa haddaan nahay peace building mudug region aan ka suubinaynaa. Up right here. I apologize. Actionable steps afar waxyaalood ama saddex waxyaalood waa inaan kala tagnaa ma aha inaan isku nimaano bas laakiin waxyaalahan ka hadlayna waa inay noqdaan walaalayaal maxaan ku kordhi karnaa dadka mudug wada degan. war dadka mudug region degan waa dad aan ka wada hadalnay common isku ayaga dhan oo waxyaalo badan ka dhaxeeyaan. marka inta ka baxaysiin waxaa qaadataan oo ayna kaga tegayaa in aad saddex waxyaalood ama afar waxyaalood aad kala tagtaan oo next year marka isku soo noqotiin aad dhahdeen wareer saddex waxyaalood balanta ka qaadnay maxaa noo hagaagay. Soomaalida waa inay ogaataa ajendaha ay leeyihiin marka hore inta meeting bilaaban. ajendaheenu saddex waxyaalood 4 days isla joogtaan next 4 days all of you. anu tomorrow waan ka tegayaa aad baan wax maay laakiin 4 days ba isla joogtaan. dadka noo yimid oo Soomaaliya nooga yimid dadka halkaan jooga xiriirka waa in la wadaajiyaa. waxaana inii sheegayaa aniga magaalo waxaan ka imid Soomaalida aad ugu badan tahay dad badanna joogaan. waxyaalaha affect nagu yeesha haddaan Somali society nahay waxa Soomaaliya ka dhaca magaalada dhan waxa arkaysaa xoogaa isbedelay attitude ama sida la isku dhaqmay isbedeshay. warse wuxuu jiraan wardee waxba xaq ka dhacay Somali situation maalin qolaa isla socota maalin qoliyaha kala isla socda because of what happened in Somali situation. That should not affect us. annaga one society nahay carruurteena isku school aada isku meel baa wada degannahay. marka waxaan ku soo gabagabeynayaa do not political difference-ga Soomaaliya ka dhacda yes annagana affect garan. This is dalkeeni waaye dadkeeni baa nahay saan isku la joogno magaalooyinkeeni iyo dalkeeni aan ku kala noolaano. marka aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan dadka soo qaban qaabaya xafladan aad u qurux badan. waxaana u rajaynayaa mudug say ku soo jirtay iyo si ka wanaagsan mar walba inay ku sii jirto.